Si aad ula socoto muuqaalo noloshaada wax ka bedeli doono, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad nagu soo biirto adigoo taabanaya subscribe button si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aanu soo gelino. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum. Ma doonaysaa inaad barato luqadda Ingiriiska? Hadday jawaabtaadu haa tahay, waxaan kuu sheegayaa qodobo haddaad raacdo kuu noqonaya waddadii aad ku baran lahayd luqaddan aad doonaysid barashadeeda. Waxaa laga yaabaa hadda ka hor inaad isku dayday barashada luqaddan, balse aad ka niyad jabtay sababo jira awgeed. Markaad luqad baranaysi maaha wax fudud, maskaxdaada ayaad korinaysaa. Waxay u baahan tahay dhabar adeeg badan iyo adkaysi joogtaa si aad u gaarto yoolkaada, kaasoo ah barashada luqaddan. Luqad walba oo aad baranaysi waxay leedahay qawaaniin iyo sharciyo loo maro, kaasoo kuu suurtagelinaya inaad si fudud ku barato luqaddaas muddo yar gudaheed. Haddaba, haddii aad raacdo qodobadan, waxaad baran kartaa luqadda Ingiriiska waliba si dhib yar. Qodobka koowaad, aqbal in luqadda Ingiriiska ay tahay luqad ajnabi ah. Mararka qaar waxaad arkaysaa in eray aad si u taqaanay haddana si kale loo dhahayo, taasoo la micno ah in eray walba meesha uu ku jiro looga tusaale qaadanayo. Dadka uu ku cusub yahay barashada luqadda Ingiriiska iyo dadka dhexdhexaadka waxay ku wareeraan erayada isku midka ah isla markaana ku kala duwan micnaha, waxayna ku xiran tahay jumlada uu eraygu ku jiro markaas. Qodobka labaad, waqti fiican sii. Barashada luqadda Ingiriiska kaliya ma ahan in aad isbuucii 1 saac siiso oo aad ka sii socoto. Kaligiis ma ahan, waa dhammaan aqoonta la baranayo. Waqti fiican sii. Barashada Ingiriiska wuxuu kugu fududaan karaa in daqiiqado kooban aad geliso maalin walba, taasoo hadhow isku bedeli doonta horumar wacan. Akhri maalin walba, dhagayso maalin walba, kuna hadal maalin walba. Qodobka saddexaad, dhagaysi badan. Wax badan dhagayso luqadda aad baranaysid. Waxaa aad u fiican inaad ka dhagaysato wada sheekaysiyada dadka u dhashay luqadda Ingiriiska, sidoo kale inaad daawato dokumentariyada luqadda Ingiriiska ah, kuwaasoo kaa caawinaya ku dhawaaqida erayada. Qodobka afaraad, isticmaal ama iska lumi. Waxaa jirta oraha Ingiriis ah oo dhahaysa use it or lose it, taasoo ka dhigan isticmaal ama lumi. Haddii aadan practice garaynin luqadda, waad hilmaamaysaa. Tanina waxay kaa caawinaysaa inaad xasuusato mar walba erayada cusub ee Ingiriiska. Qaabka ugu fiican ee aad ku xasuusan karto erayada Ingiriiska ayaa ah inaad isticmaasho markaad barato eray. Isku day inaad ku dhisto jumlad yar. Qodobka shanaad, uma baahnid inaad ku noolaato waddan looga hadlo luqadda Ingiriiska si aad u noqoto qof fasiix ugu hadlaya luqadda. Xitaa uma baahnid inaad gurigaaga ka baxdo. Dunidii way horumartay, wax walba waxaad ku baran kartaa adigoo gurigaaga joogo. Ka dhiga qayb nolol maalmeedkaaga ka mid ah adigoo ka baranaya YouTube-ka. Qodobka lixaad, qor vocabulary badan ama erayo badan, kadibna akhri oo ku celceli adigoo ka samaynaya jumlo. Qodobka toddobaad, dhagayso warbaahinada ku baxa luqadda Ingiriiska sida BBC, VOA. La soco barnaamijyada ay soo daayaan sida dokumentariyada, waraysiga ay ka qaadayaan dadka caanka ah, doodaha dhex maraya siyaasiyiinta. Dhammaantood waxay kaa caawinayaan inaad luqadda si fiican u sii fahanto. Qodobka siddeedaad, meel iska saar cabsida badan, sida inaad ka cabsato inaad qof kula hadasho luqadda. Mar walba ka muuqa galaaska, u istaag qof walba, la samee practice, iska saar cabsida. Qodobka sagaalaad, samayso saaxiibo aad kula hadasho mar walba luqadda, xitaa ha noqdaan dad ajaaniba. Inaad mar walba samayso practice waa waddada ugu fudud ee lagu baran karo luqaddan. Isku samee xitaa practice adigoo isqeexayo, warbixin iska samee information. Qoro eray walba kugu cusub, ku qoro buuggaaga note-ka, isla markiiba jumlad ku dhis eraygaas laftigiisa, kuna kalsoonow naftaada. Mar walba waxaan kugula talinayaa inaad practice samayso. Waad awooddaa, dhiirigeli naftaada. Daawo muuqaalada hoos ku soo qoraayo qoraallada Ingiriiska. Waxay ku magacaabaan subtitles, muuqaalada subtitle kale ah ama hoos ku soo qoraayo qofku markuu hadlayo wuxuu ku hadlayay. Qodobka tobanaad oo ah kan ugu dambeeyo, yeelo hadaf cad, kaasoo kugu sababay inaad barato luqaddan. Haddaba, haddaadan lahayn hadaf, iska dhaaf, ma baran kartid waxbana, waayo naftaadu waa hayaacdo. Waxaa tahay qof aan garanayn meeshuu u socdo. Mar walba isweydii, maxaa kugu dhaliyay inaad barato luqaddan? Ma waxaan u baranayaa inaan shaqo fiican ku helo? Ma waxaan u baranayaa inaan kula hadlo dadka ajaanibta ah? Mise waxaan u baranayaa nafsadeeda inaan ku horumariyo dhanka aqoon ahaanta iyo dhanka garaadkaba? Isweydii su'aalahaas mar walba,
waxay kuu noqonayaan dhiirigelin. Fadhigana ka kac. Waxaad tahay qof dhalinyaro ah. Awood ayaad leedahay inaad wax walba baratid. Maskaxdaadu markaan waa fresh. Waxay u baahan tahay in wax lagu shubo, hadhowna laga isticmaalo. Waad awooddaa walaalle, wax walba waad baran kartaa intaad nooshahay. Ka kac fadhiga. Waad mahadsantihiin daawashada aad daawateen muuqaalkan. Waxaan filayaa inuu idin cajib geliyay. Fadlan subscribe garee channelka si aad noola socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono insha Allah. Lana wadaag asxaabtaada fiidiyowgan. Waa walaalkiisa Cabdi Yaasiin.